Naagtan halkan ay ugu jeediin waxay dishay ninkeedii waxayna ku eedeysay gabadheeda. Sheekadan oo dhammaystiran ayaan ka dabageeyay. Naagta magaceeda waxaa la yiraahdaa naagta halkan in soo saaray magaceeda waxaa la yiraahdaa Stacy. Naagtan waxay xiriir jacayl la sameysay ninkan oo hadda markaas sawirka ay iskula jiraan ay xiriir jacayl la sameysay muddo kadibna waa isguursadeen. Ninkan waxaa la yiraahdaa Michael la yiraahdaa. Sawirkii magaciisa halkan aan kugu soo qorayaa. Marka muddo badan markay isqabeen oo markaa iska dhaleen laba gabdhood oo markaa la yiraahdo mid Ashley la yiraahdaa midna Bree la yiraahdaa. Labadaas iska dhaleen. Marka sanadii kadibna wuu dhintay oo markaa wuxuu u dhintay wadnaha ayaa istaagay markuu dhintay. Marka gabadhan maamadan Stacy la yiraahdo hal sano kadib nin kale ayay isbarteen oo markaa ah ninkan sawirka ay kula jirto. Hal sano kadib ayay isbarteen ninkan markuu dhintay ninkii hore. Marka xiriir ay isla yeesheen waa isfahmeen muddo yar kadibna waa isguursadeen. Ninkan oo markaa magaciisa lagu magacaabo David. Nolol farxad lehna ay ku noolaayeen cabaar. Marka muddo fog ay nolol farxad leh ay ku noolaayeen. Marka maalin maalmaha ka mid ah ilaa markii dambe ay isgafeen oo markaa dagaal uu dhex maray oo markaa suxun iskugu dhaqaaqeen oo markaa suxun isu dagaaleen. Maadaama ay isgafeen oo suxun isu gafeen David wuxuu isku soo xiray gurigiisa markaa oo uu saaxan jiray. Maadaama markaa labada gabdhood oo ninka hore uu ka dhalay ay la joogaan ninkaana markaa gadaal dambe ay ka guursatay gurigiisana markaa la joogo. Gurigiis markaa markay isku hanaaqeen oo isgafeen gurigii baxa ayuu yiri sida darteed marka asagu wuxuu isku xiray guri. Marka sida hadalku u dhigay Stacy oo ah marka xaaska David wuxuu isku soo xiray gurigi qolkii uu saaxan jiray ayuu isku soo xiray asagoo markaa haysta dhalo khamro ah. Marka maadaama uu Said u hanaaqsanaa Stacy iyo labadeeda gabdhood lama hadlin. Maadaama uu Said u hanaaqsanaa marka maysan la hadlin muddo. Maadaama uu guriga isku soo xiray uuna hanaaqsan yahay maysan la hadlin muddo. Marka danooda iska raacanayeen guriga iskaga soo laabanayeen muddo markii laga joogo 3 maalin oo marka maalinka saddexaad la marayo ay marka qofna uu marka guriga uu ka soo baxaynin qof ka soo baxa uusan jirin maadaama uu isku xiray sidoo iskugu xirayna uu yahay. Maadaama la marayo maalinka saddexaad uu marka David uu guriga ka soo bixin oo marka juuq iyo marka hadalkiisa baan la haynin waxay damacday inay guriga ku yar qaraacdo si ay u ogaato laakiin looma jawaabin. Qof dhaqaaqay mase u jawaabay aysan lahayn gurigina markaas uu isku xiray. Marka guriga ay ku qaraacday si ay u ogaato wixii dhacay laakiin marka qof ugu jawaabay malaha la iska aamusan yahay. Markii Stacy waxay go'aansatay maadaama maalinka saddexaad la marayo marka qof hadlaan uusan jirin oo shakiday waxay wacday booliiska ama isdilay ayay istiray marka booliiska ay wacday. Markii Stacy sheekada dhan ay ugu dhacday booliiska markay wacday waxay u sheegtay inay ninkeeda isgafeen oo isku hanaaqeen muddo 3 beri ka hor oo maantadan oo 3 beri ay ku tahay. Waana isku hanaaqnay sidaa darteed asaga Said ayuu hanaaqay marka guriga ayuu isku soo xiray qolkiisa jiifka. Marka maadaama uu Said u hanaaqsanaa iyagana marka hadal kuma aysan darsanin gurigiisa iskaga jiri. Sidaa darteed markii laga joogo muddo 3 beri oo maalinkaas marka ay booliiska wacayaan siday marka warka ay Stacy siday u dhigayso weeyaan oo marka booliiska ugu sheegayso. Maalinka saddexaad markii la marayo ay damacday inay marka guriga ku qaraacdo si ay booliiska ugu sheegayso. Booliiska marka sidaas ay ugu sheegaysaa sheekada ay u dhacday. Marka qof marka u jawaaba mase guriga ka dhex hadlaan uusan marka jirin gurigiisana uu hoos iskaga xiray. Si doonto ay soo bisina marka qof la hadla uusan jirin marka ayadana ay ka shakisay maadaama ay isgafsanayeen inuu marka isdilay ama uu isdilay si ay noqoto.
marka booliiska waxay dhahday inaa ogaataan rabaa marka halkan imaadaan xaalka siduu yahay aad ogaataan marka ninkan u dhacdaan maadaama marka guriga isla degan yihiin qolkiisa bis uu isku xiray marka booliiska ayaa imaaday halkaas si ay u ogaadaan xaaladda iyo wixii jira si ay u ogaadaan booliiska ayaa imaaday si ay u ogaadaan xaalalka wixii jira marka David sawirkiisana halkan ayaan soo dhigi doonaa dadka isku qaldina marka booliiska ayaa imaaday guriga ay qaraaceen sidii marka Stacy camal qof marka hadlaayo mase ka dhaqdhaqaaqay uusan jirin ay markii dambe isdheheen aan jibin irid wixii jiraan ogaan iridii ay jibiyeen abaar ay la xarbinayeen iridii ay jibiyeen markii dambe haday jibiyaan gudaha waxay ugu tageen David oo ah marka ninkii Stacy oo marka maid ah oo meeshaas yaalla oo dhala qamra ay agtaalla iyo marka sun antifreeze la dhaha ay marka agtaalla iyo koob lagu cabay marka waxay u arkeen dhacdada qof isdilay camal ay u arkeen markay arkeen maidkiisa oo marka sariirta kor saaran iyo dhala qamra iyo marka antifreeze oo marka sun dadka lagu dilo oo halis ah marka iyo koob marka lagu cabay antifreeze marka Stacy oo marka xaaskiisa ahayd oo isgafsanayeen ay su'aalo weydiiyeen inuu marka ninkan ahaa nin Stacy waa kan way soo dhigayaa ayadii asaga oo marka sawir isku jiro halkan ay soo saarayaa Stacy ay wareysteen ninkaanay nin stress badan oo marka stress uu haay miyuu ahaa maadaama markaas isgafsanadeen qof waa isdili mal dhigi karaa ayadana marka waxyaabo kale dabooleysay gadaal dambe ka ogaan doontaan waxay dhahday inuu isdili ay u badanta maadaama daawada sunta ay meesha taalo qamrana ay meesha taalo oo markaas uu xanaaqsan uu guriga galay marka kiiska dambi baaryaal loo dhiibay dambi baarayaasha kiiska markay fiiriyeen oo marka waxyaabo meeshii la arkeen waxay u arkeen ama ugu muuqatay inuu marka David uu isdilay uu asaga isdilay marka kiiska aan qodobka qofka isdilay wax marka laga dabagalay jirin oo marka la iska soo afjar camal laakiin hal mid ayay arkeen oo marka inuusan dhimanin ka hor maalkiisa wuxuu ku wareejiyay Stacy oo ah marka xaaskiisa marka isdagaalsanayeen iyo labada gabdhood marka asaga ma dhalin ninkii hore ka dhalay oo Michael la yiraahdo ka dhalay ninkii hore ayaa ka dhalay marka maaha ninkan David ma waxay ka shakiyeen maadaama maalka marka lagu wareejiyay labadeeda gabdhood iyo Stacy labada gabdhood marka uu asaga dhalin haddana David hal wiil bisoo dhalay halkii wiilna gabar kale ayuu ka dhalay halkii wiilna marka hal shilan oo lagu qoray aysan jirin oo wax maal aan lagu qorin marka maadaama Stacy ay hore u haysatay labadan gabdhood si fiican fahantaan rabaa labadan gabdhood marka ay hore u haysto ninka hore uu ka dhalay ninkan uusan ka dhalin maalkana marka la fiiriyay ku qoran inuu marka maalka lagu wareejiyay ayada iyo labadeeda gabdhood hal wiil uu dhalay David halkii wiil islaanta waxba uma dhalin islaan kale ayuu hal wiil ka dhalay halkii wiilna marka waxba lagu qorin arintaas marka waxay keentay shaki in marka ninkan la dilay maalkiisana la wareegay oo ayada la wareegtay marka nin said u aqli badan oo marka la yiraahdo dambi baare oo marka la yiraahdo Spinelli halkan sawirkiisa soo dhigi doonaa Spinelli ayaa la wareegay kiiskan si uu u dabagala oo marka war saxan ugu soo saar marka Spinelli Stacy ayuu u yeeray maamada labada gabdhood dhashay oo marka ninka inay dishay looga shaksan ayuu u yeeray si uu su'aalo u weydiiyo maadaama uu soo kiiska la wareegay oo marka uu dambi baare ka yahay xilligaas su'aal ayaa la weydiiyay marka Stacy waxa weydiinaa Spinelli wuxuu yiri inuu David uu guriga isku soo xirin ka hor
maadaama 3 beri ka hor intuusan guriga isku soo xirin koob oo markaa adiga aad wax ku siisay miyaa jira, maadaama halkaas marka laga helay koob markaa sun ay ku jirto. Su'aal la weydiin rabay wax markaa antifreeze ah ama sunta lagu dili ah waxba looma soo sheegin, wax saas ku saabsan laguma soo sheeqaadin. sidaa darteed marka su'aal la weydiiyey koob aad wax ku siisay ma jiraan Allah marka waxaa kuto hadal ayaa kasoo fakaday marka ayada koob aad ku siisay juice miyaa, koob aad ku siisay hata juice lama dhihin, koob aad ku siisay wax miyaa jiraan leh markaas kuto koobkii aan ku siiyey antifreeze-ka miyaa. marka antifreeze waa sunti oo markaa la siiyey ninkan uu ku dhintay oo markaa markii la baaray laga helay, hataaba meesha uu joogay laga helay dhalada ay ku jirtay iyo markaa koobkii lagu siiyey. marka antifreeze-ka koobkii aan ku siiyey miyaa ay tiri waa kasoo fakaday mogta, markaas ay gadaal dambe iska garatay marka inay hadal kasoo fakaday. waxaan ku wadaa koobkii aan ku siiyey juice miyaa ka wadaa camal, juice ku siisay miyaa koob. haa su'aalahaas oo marka ninkan dambi baaraha antifreeze iyo sunta magaceedii waxaas taa kuma soo shaqaadin, ayadaa iska soo arrintiiba soo saartay maadaama oo markaa ay cabsanaysay oo dambiga inuu kusoo baxay ka baqayso oo markaa ay jaraynaysay cabsida daraadeed markaa hadalla kasoo fakaday. marka su'aal ayuu weydiiyey Spinelli oo ah markaa ninka halkaa in soo saaray oo dambi baaraha ah. su'aal ayuu weydiiyey maadaama markaa islaantan markaa su'aalihii dhan uu weydiiyey tan ugu dambeysay ayaa ah markaa ninkaagii hore aawo David intaadan isguursanin ka hor ninkaagii hore aawo. ninkan marka wuxuu doonayay inuu ka ogaado dabeecadda Stacy ninkeedii hore, inuu ka ogaado waxyaabaha markaa dabcigeeda iyo siduu ahaa wax isku inuu ka weydiiyey ayuu rabay si uu marka waxyaabo badan ugu ogaado. ayadan markaa u jawaabtay waxay tiri in ninkeyga hore uu dhintay, wuxuuna u dhintay wadnaha ayaa istaagay. Spinelli marka ninkii baaritaanka suubinayay maadaama uu shaki badan uu jiro, ninkaas shaki badan ayaa galay marka maadaama uu islahaa marka Stacy qof noocmaa ay ahayd inuu weydiiyey marka ninkeedii hore uu rabay, laakiin ninkii hore lalahay waa uu dhintay shaki kalena uu kusii jiray. marka su'aalihii uu rabay markuu weydiiyey ayuu markaa iska fasaxay ayada maadaama uu markaa Spinelli uu shakiyey uu yiri ninkeedii horan ama ayada dishay markaa ay siisay suntan. marka inuu baaro ayuu rabaa oo arrimo badan oo markaa ay u soo baxaan oo maas markaa waxyaabo badan uu ka helay information. marka Spinelli wuxuu codsaday oo dawladda ka codsaday in markaa la soo bixiyay meydkii ninkii hore oo Stacy oo markaa labadan gabdhood ka dhalay oo magaciisa la yiraahdo Michael. ninkaasay inuu markaa maadaama uu wadnaha uu istaagay uu dhintay markaa in la soo saaro qabriga laga soo saaro si loo ogaado wixii sababay dhimashadiisa. Michael sawirkiisa intii soo dhigaa waa ninkii hore oo markaa ayada qabay Stacy. marka Spinelli wuxuu weydiisaday dawladda inay fasax u siiso inuu markaa ninkii hore laga soo saaro qabriga uu markaa baaritaan ku soo bixiyay si uu ogaado xaaladda iyo wixii jira. laakiin dawladda nasiib darro dawladdu way ka diiday. marka maalmo xilli kooban baasaan laysu wareejinayay kadib maadaama uu ninkaa markaa waxyaabo badan ay ugu xiran yihiin inuu ogaadan uu rabo arrinta taalana in lagu kala baxay tahay dawladdu waxay ka ogolaatay inay markaa meydkii hore la soo bixiyay baaritaan lagu soo bixiyay. marka ninkii waa la soo saaray ninkii hore oo markaa ahay Michael oo labada gabdhood markaa ka dhalay Stacy. ninkii meydkiisa la soo saaray marka si uu baaritaan loogu soo bixiyay marka loo ogaado wixii asagana dilkiisa sababay inuu dhinto sababay in markaa la baaritaan badan lagu soo bixiyay. marka maadaama Spinelli uu dhiibay khubaro markaa caafimaadka ah
si ay u baaraan ay u soo ogaadaan. Marka suntii la siiyey ninkaanay sun adag ayay ahayd oo markaa awood leh. Saa darteed baaritaano badan marka lagu soo biyey 2 beri ama 3 beri kadib waxaa la ogaaday inuu jirkiisa ninkaas ay ku jirto suntii antifreeze la lahaa oo markaa lagu dilay David oo idiin sheegayay oo gurigiisana laga helay. taasna marka waxay abuurtay in shaki kale uu imaado inay islaanta labada nin baa iyada dishay. shakiga uu sii bato maadaama marka ninkaas jirkiisa laga helay suntaas markaa ninkii laga helay suntaasna uu yahay Michael oo labada gabdhood markaa dhalay. labada gabdhood marka waxay dhiganayaan jaamacad sanadka inkastoo kala fasal u yihiin markaa jaamacad ay dhiganayaan kala semester ay yihiin. marka dambi baare Spinelli wuxuu markaa aaday jaamacadda marka ay dhigatay gabadha Ashley la dhaha. Ashley waxa waaye labada gabdhood oo dhashay Stacy, labada gabdhood oo dhashay mid ka mid weeyaan mid weyn waa. marka sawirkooda inta soo dhigi doonaa labada gabdhood ninka arki doono. marka maadaama marka Ashley ay tahay gabadha markaa laga dhalay ninkii hore ayada iyo gabadhi kaleba oo hadday in sheegay Brie la dhahay. marka dambi baare Spinelli wuxuu rabaa inuu gabadhaas waxyaabo badan uu markaa uu ka weydiiyo wix loo geystay ama waxyaabo kale su'aalo kale information waxay noqoto markaa uu ka hela xageeda si uu markaa waxay noqoto wax uu ugu helo. Spinelli marka uu la kulmay Ashley su'aalo ayuu weydiiyey. marka su'aalo ayuu ka weydiiyey Stacy Ashley oo ah gabadhi Stacy gabar kale oo ka yar ayaana jirta oo Brie la dhahay markaas isla ma joogaan isku sameystaan maahan marka isla ma joogaan markaas Ashley weydiinay. marka maadaama Ashley hooyadeed ay u sheegtay in aabaheed uu wadnaha istaagay oo marka uu dar caafimaad darro uu iskaga dhintay oo marka wadnaha uu istaagay in haddana marka la weydiinay aabaheed sun yaa siiyey su'aalo la weydiinay hooyadeed ay wacday aabaheed yaa dilay su'aalaha ay weydiisay. sidaa darteed marka hooyadeed waxay ku tiri booliistan iyo dambi baarayaashan aysan markaa ku waalin oo dad wareersan marka xaafadda iska soo aaday ku tiri. ninka marka Spinelli wuu ka tagay gabadha markuu su'aalo yar weydiiyey wuu iskaga tagay. ayadana marka xaafadda ay soo aaday rabtay hooyadeed telefoon ku soo wacday oo la hadlaysaa marka oo u sheegaysaa. hooyadeedna marka maadaama ay ogaatay inay xaaladaha is soo furfurayaan oo maalinba maalinta ka dambeysa marka sii fashilmayso waxay ballaangaraysay inay gabadheeda markaa u yartay waxay tiri xaafadda imaaw aan ku wada caweyna meesha marka waxyaabo qaarna kuu sheegay ku dhaad. sidaa darteed marka gabadha soo tagtay xaafadda imaaday maadaama marka waalidka cunuga marka waalidka uu ka cabsado uusan markaa guriga dhexdiisa hataa qamrad uu cabaya uusan ku cabi karin inkastoo gabdhaha ay ahaayeen gabdho iska fiican. marka qamro ayay u diyaarisay maanta iska baashaali markay imaaday waa iska baashaalayna kaale gabadhi kale marka way maqan tahay ma joogto iska baashaalayna kaale dhadi arko qamro siisay ayadan waxay kala dalneed inay qamro siiso markay sarqaanta ay ugu darto suntii aabaheed iyo ninka kale ay siisay ay ugu darto ayadana ay jiidato markay jiidato ay warqad qorto marka ay tiraahdo idinka dabgeena maadaama marka kiiska ku cadaan raba inay gabadheeda sun siiso ayay rabtaa oo markay sunta siisana qamro fasta ay siiso si qof isku siin kartid malaha sun caadi urayso loo jeedo laakiin qamray siinay markay sarqaanta waxay ugu dari suntii si ay marka ayadana u jiidato hadhowna marka kombiyuutarka ay dul fadhiisato warqad ay qorto ay dhahdo ayadoo marka iska dhigi gabadheeda Ashley inay dhahdo
aniga aabbahay dili ninkii Michael ahay anigaa dili inay dhahdo aabbahay ah iyo ninkii markaa adeerkeed ahay oo hooyadeed qabi anigaa dili inay warqadda ku dhahdo ayadoo markaa iska dhigaysa Ashley oona markaa adhow warqadda way gudbinayna dhehi Ashley ayaa qortay intaysan isdilin ka hor. Marka gabadhii marka way siisay waxyar markay sarqaan siisay waa ugu dartay ayarka bacdi waxaa gabay tiri waa qaade sariirtada jiifka geys marka inta soo saacday tala meyd ahaan waa marka ayad markay meyd ahaan u aragtay in qofkan qof dhintay camal uu yahay u aragtay waa oroday computer ay dul fadhiisatay waxay qortay warqad sidoo markaa iska dhigaysa gabadheeda Ashley iska dhigaysa warqaday qortay gabadheeda Ashley ayadoo iska dhigaysa sidaan anaa dili aabbahay anaa dili adeerkay ninka hooyadeed qabi waxaas kulli ayadoo markaa iska dhigaysa Ashley gabadheeda Ashley ah sawirkeeda inta soo dhigaa. Marka gabadhii markaan ku idiin sheegay oo walaasheed ahayd oo marka ayadana iskuul dhiganaysa idiin sheegay jaamacad dhiganaysa oo Bri la dhahayo care markaas care Ashley markaa care gabadhaas marka oo Bri la dhahayo care markaa Ashleydan ayaa ka imaaday jaamacad ayadoo soo daahday maadaama gabadhan waxyaabo badan ay ogaatay rabtay ayadoo soo dhaqsatay tan kale marka ma ogeyn maadaama ay u sheegin ayada markay imaaday xaafadda cabaarka joogtay waxay weysay hadalkii walaasheeday weysay waxay istiri marka u yeertay qof la hadlaa malaha waxayna taagnay waxay soo istaagtay marka qolkii ay saaxanaysay Ashley ay saaxanaysay qolkii Ashley saaxanaysay soo istaagtay say u ogaato marka meesha ku jirto maswixi jira is u yeertay qof jawaab dayb jirin qolkii dalaq iska soo tiray maadaama uu furnaa dalaq soo tiray baa kana walaasheed oo marka qof meyd ahaan u yaal sanadii fiirsan inay dhimatay muddo isla markii ay qaylisay hooyadeeda imaaday intay hooyadeed imaadeen ambulance wacday hooyadeed marka isla guriga isla degan isla joogaan laakiin ayada meel kale joogtaa oo marka stairs ka koray aaday tay ku maqneeday gabadhan soo gashay marka ayada marka gabadh markay aragtay ambulance ay wacday hooyadeedna u yeertay intay soo gaarin ambulance ay wacday isla markii waa imaadeen oo la qaaday meyd ahaanay u aragtaa marka maadaama Stacy ayada ay rabtay inay gabadheeda marka ay dhimato saas dhow dambiga kor ugu saarto iyadana waa isdishay dhaata waxa lagu qaaday ambulance rag isbitaal la geeyay waa la daaway nasiib ilaahi way ka bogsatay waa laga gaaray ayadoo xaalad ay qiiq ku tahay oo dhimo rabta laga gaaray marka daawiyana la siiyay oo sunta markaa ka bixina la siiyay bes way fiicnaatay okay indaas saan usoo kala qaaday Stacy isla markii warqadii iyo wixii ay ku gudbisay waxay ku wareejisay Spinelli oo ah marka dambi baari saanta indaa usoo kala qaaday Ashley waxay aragtay dambi baari Spinelli sawirkiisa inta soo dhigi doonaa su'aal weydiin marka maadaama warqadda ay qortay anaa dilay oo Ashley ay iska dhigaysay hooyadeedna markaa aysan filaynin inay markaa Ashley ka kici doonto inay dhiman doonto ay u haysatay maadaama ay aragtay gabadheeda soo kacday ay aragtay marka ninkii Spinelli uu su'aal weydiinaya markaa maxaad ku dishay aabaha maxaad ku dishay adeerka hooyada qabi marka la weydiiyay Ashley waa soo booday aniga ma dilin mana qornayraad warqadii loo dhiibay akhriso anima qornayraad marka waxa lagu ogaaday warqadda Ashley maadaama ay jaamacad dhigato semesteryaal badan ay markaa soo dhameystay oo jaamacad ay sii wada maadaama marka qof jaamacad dhigta ay tahay Ingiriishkeeda inuu saxnaada laga filayaa Ingiriishka dal fiiriyo grammarkiisa qaldan waxyaabo badan ka qaldan maadaama computer lagu qoray far lama fiirin karo laakiin computer lagu qoray laakiin waa loo jeedaa inay grammar wax ka qaldan hooyadeedna marka school bisay dhameysay high school wax kala
maysan dhameynin garaama ma laha waxbaa ka qaldan ingiriiska waa la fahmay marka ayadan maadaama ay inkirtay maadaama Stacy ay gabadheeda u haysatay inay dhiman doonto ayadan wax kulli kor ka saarta sheekada meelaas ay ku dantay rabtay laakiin ilaa amarkiisa maysan dhicin marka sheekadan waa in ku dheereeyay iga raali noqdo sheekada saas u dheer marka maadaama warqadda qortay marka ay ka dhigtay camal sidii Ashley iyadoo qiratay inay dishay aabaheed iyo ninkii kale marka adeerkeed ahay maadaama marka cadeymahaas ay yeelaan oy u eg tahay Stacy inay ayada qortay marka Ashleyna ay marka ku cadeynayso ilaa aniga waxba ma qorin saas aniga sundaas leysiyay wax ku cadaatay marka inay ayada dhibka geysatay Stacy inay ayada dhibkaas geysatay marka arinta kale oo cadeynayso waxa waaye inay marka ayada geysatay dhibkaas arinta kale oo cadeynayso cadeyn u noqon waxa waaye inay markii la weydiinayay su'aashii ugu horeysay oo la lahaa galaas intuusan David dhiman David ninkan dambu waaye oo marka isdili la lahaa David laakiin ayada dishay David la weydiiyey marka ugu dambeysay adiga galaas ma u geysay watii ay lahayd marka ay kasoo fikanaysay ay lahayd galaaska aan ku siiyey antivirus miya marka antivirus maysan dhihin antifree magacii marka ZE ay ka reebtay oo antivirus laga reebay ZE laba xaraf ay ka reebtay ugu dambeeyay maadaama labada xaraf ay ka reebtay markay hadlaysay in warqadda ay qortay oo marka ay ka dhigaysay in gabadheeda Ashley ayada dhibaatada marka dambiga ay geysatay ay ka dhigaysay suntul ana ugu darin ana siiyay ay ka dhigtay warqadda laakiin antivirus meesha ku qorleed qaabkii u dheeysay ka dhigtay antifree ay dhahtay ZE ay ka ilmaantay taasoo markaa tusinay inay ayada wixii kulli geysatay cadeyn u ah waayo waxay ka ilmaantay ZE ay ka ilmaantay antifree ay dhahtay waa qaabka marka ayada ay u taqaano markay u arkaysay qoritaankani maadaama antifree dhahtay waxba kale aysan raacinin suntada ana siiyay dhees gabadheeda marka iskiga dhigaysay maadaama gabadheeda ay filaysay inay dhiman doonto oysan noolaanayn oo ka kacaynin laakiin nasiib ilaahay Ashley marka waa Stacy marka warku waa ku cadaaday waxay isku dayday ninkeedii hore dishay way markaa sun siisay antivirus taanay siisay oo ku dhintay ninkii labaadna ninkii hore baaritaanka lagu siibay lagu ogaaday sanaftigiisa midda kale galaaskii lagu siiyay antiviruska faraheeda fingerprintadii laga helay saas cadeyn caadi ah oo full ah looga helay marka waxa lagu ogaaday inay ninka hore dishay ninka labaad ay dishay gabadheeda isku dayday inay dishay oo ilaahay uun ka badbaaday marka soo daradeed waxa lagu xukumay cimri xarag u bogteen dacdiyoonka nooca camal da u bogteen YouTube-kan soo gelin doonaa insha Allah khayran in rajaynaya hurdiya hayso waxaan leeyahay yihiin awada dhanan ka shaqeynaya marka khayran in rajaynaya subscribe saara channelka kambalelkana furta marka halkan ay kala soconayna insha Allah muuqaalka like saara ilmaamina commentana ku soo qor insha Allah ina u bogteen muuqaalka iyo in kale khayran in rajaynaya